hurdada markay ka soo kacday saq dhex waaye dhinaceeda fiirisay odaygeedii mala jiifo way yaabtay waxay tiri odayga yaa qaatay way soo kacday way raadisay qolalka dhan ay ka raadisay waxay ka heshay marka dambe oo hadal iyo ninac ka yeerayso qol haddii ilaahay awlaad siiyo ee u samaysteen markeeda horeba qolkaas ayaa hadalka dhex yeeray qolkii albaabkiisa markay furtay maxay aragtay balna kacsho qisadan aan wada dhegaysanay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta qisadayna waxay tahay mataqaanaa qisadayna waxaa waaye subxaan allah mujtamac yani dadweynihin soomaaliya xataa qisooyinkan oo kaleeto way ka dhacaan ma dhahay in gabadha markii la guursado sanadka koowaad ilmaha ay dhaliweys sanadka labaad ay dhaliweys sanadka saddexaad ay dhaliweys la dhahayo ma dhasho waayo qisadan marka taasay ka turjumaanay gabadhan reerkeedii reer dhaqaale la waayo reer waxba ilaahay dad ma jirto ilaahay siiye dhaqaalaha ilaahay siiye waxay jeclaadeen wiil yani maadiyan asaga iska shaqaysto oo wax yar dhaqaaq soo galo laakiin sidii reerkooda oo kale dad dhaqan aysan ahayn dukaamo u furna adduunya haysto shirkada haysto aysan ahayn waayo wiilkan markay jeclaadeen hooyada aabeed u sheegtay waxay tiri wiilkan waan jecelnaa waan israbnaa wiilkii way soo doonanaa wiilkii markuu yimid ee wiilkii ciday bahareen waxay ogaadeen cidan inay cid faqritaa waxba haysan oo wiilkan baabalaya yani iska soo shaqaysto taajir iyo faqriga waxawaaye isma rabaan waxawaaye tom and jerry isku yihiin masont marka gabadhan waxay tiri hooyo aabbo dhegeysta aniga diidina ogolaatayna anigu ninkan maa nin kaleete ma rabay tiri hooyada aabeed waa fikireen waxay isdhaheen inta gadaashinka wareegi lahayd inta wax xun samay lahayd isaga dara laakiin shuruuda ku xiran shuruudaas waxay ugu dhigeen ilaa wiilkan uu guri yani kuu samayn karo inta alaab kuu dhigo kuu dhigi karo kuu dejisan karo waa ku qutubnaanaysaa waa sugaysaa hayay jiri asagii yaa loo sheegay waayuu yiri 2 sano waxa waaye waa isku doonashada waa loo sameeyey laakiin 2 sano ayuu wuxuu la dagaalamayay oo la hirikaamayay oo waxaan lahaa jiray dadaalkeed ugu jiray inuu guri sameeyo guriguu sameeyey markii 2 sano kasoo wareegatay oo guriga diyaariyeen arooskooda la dhigay guriguu diyaariyay alxamdulillah gurigooda markii la geeyey sanadka koowaad isla joogeen sanadka labaad isla joogeen sanadka saddexaad markay bilaabatay hooyadiis waxay bilowday gabadhan ma dhasho waaye inaag kale la guursatid iyo in hadday furan rabtan aad furtid wuxuu yiri hooyo aabbo waxaas ma jiraane waa soo baareynaa gabadha waxay tiri diyaaran ahay in laysoo baaro ayada asagaa baxeen dhakhtarkay balansadeen baaristaa lagu bilaabo ayadana waa la baaray asagana waa la baaray ayada markii la baaray waxaa lasoo sheegay inay saliim tahay ilaaha duwax siiyo ay dhalayso asagayaa la baaray waxaa lasoo saaray asaga inuusan ilmo dhalayn wax ma dhalayaa hooyadiis indhihii taagtay qofka cilada qabo ma wiilkayga qofka cilada qabo waa wiilkaaga waa marka maxay sameynay marka waxay sameeyeen hooyadii sodohda ahaa sodohdii ewl mucaamaladeeda hadday ahayd mucaamalo xun ay jirto naagay wax dhalayn taan wax dhalayn madax dhalayn waay ma dhasho waay waxayna hortaagantahay ma la guursatid ma iska furtid say u lahayd islaantii markay ogaatay yaa in wiilkeedu wax ma dhalayo duruufta kaliftay inay isdejiso marka ويزدج gabadhii marka waxay la macaamil fiican la soo bashay waxay tiri gabar sawir badanaata gabadhii adaa go'aan leh adaa ikhtiyaar leh markaas waxay tiri aniga go'aankayga waxay tiri inaan la joogo odaygayga wuxuu yahay aan ku haysto reerkeeda ku soo hirtay waxay dhaheen haye walba ninkan kula marabin haddana ma dhalaay ma leeyahay waxa ku qasbay waa inuu ku furaa waxay tiri gabadhan dhegeysta labada family ba dhegeysta wiilkan anaga is dooranay anagaan is jecel wiilun wuu jecel yahay anna waa jecel أنا دب أكتيد ما قدرت أصلا دب أكتيد ما قدرت لكن لبعض أنا بربلام هذا إذا كنت بني هاي محاول أنا أقول قناع حسن أصلا يقول قناع حسن وصلنا لنا بس لجوجي لح سنة ضلتك دمعتي أصلنا لنا هبين هكمن والبنين كانوا حسمين جري مركو أجهدي إنه إحنا إليس بيجري حوق على لاب لوق ناكتان لبريو ناكتان لطم ناكتان لجيري ما أوجا قبل عمرك wuxuu sameeyaa habeen walba inuu baxo markuu rabo wuxuu sameeyaa gabadhan cabitaan wuxuu ugu diraa
daawada hurdada يعني hurdo dheer gari ma soo kacayso cashadii wixii marka la diyaariyo daawadii u taallaa jikada wax ugu dirsan inta u baqataa maskiin waa qaftaan koobkeeda u shuba meesha u saaraa cabhee waana cabtaa ninkayga waa kan waa cab mujeedo adina kaa cab walaan waa koob wax lagu daray haween walba saas uu ku seexiyaa soo saas u ahay ee sanooyin kusoo wareegatay ilaahay markuu ku kashifi rabo ilaa waxaad ku socotid qalad yahay ilaahay hal mar loo ku kashifaa mise haddaadan tooba dhahayn aad dib ugu noqonin rabbigay hal mar ku kashifaa marka waxa waaye qofka bini'aadamka markuu qalad galo xataa waa inuu tooba yiraahdaa ma qaldamo waa ilaah bini'aadanana basharana waa qaldami karnaa laakiin waxaa la rabaa qaladka qofka inuu kasoo laabto yiraahdo tooba ila allah khalaas wajuuji ma dhihine waa ku socay waa macad ileen waxa waaye shaydaanka xaaraanta markuu kusii tusinaa shaydaanka waa shidey uu kusii wada musan wuu ku socday habeenada ka mid ah ayay gabadhaan waxa waaye cabitaankii oo u show musqushu aad uu ku khasbi jiray cab u jirno way cabi jirtay caawa ku cabinay walaashay waxay soo bisay cabitaankii waa qaaday waxay geysay jikada meesha alaabta lagu dhaqaayo maqsalada asaga shubtay koobka iska raacsis iska gambis asaga soo bax cabitaanka ma cabti waa cabi iska jiri iska seexatay leena cabitaanka ma hayso markay seexatay ee muddo jiirtay 3 saacadood saq dhaxan la joogo ee soo fadhiisay aweylo wuxuu iska dhigay inuu seexday wala seexday leena ninkan waxa waaye nin hool kala haysto waaye markay seexato ay kala dhacdo arko ilma soo kacayso isleeyahay waa siisay daawadeed hurdada danaha garaaco caawaba saq dhax markii la joogo aba 3 saac hurdadii way ka soo dhamaatay oo soo fadhiisatay 3 saacadood markay jiifto waa soo fadhiistay saq dhaxa la jooga odaygeeda dhinaca ka fiirsan ma fadhiyo waxay istir musqushu aad way sugtay wax soo noqonay mal way istaagtay musqushay ka fiirsay wax ku jira mal albaabku furay musqush kale aaday wax ku jira malaha beelaan ay soo wareegtay qol waxaa jira marka haddii markay horeba dadkan ay ku tashteen haddii ilaahay awlaad siiyo ee qol ilmeed ugu dhigeen qolkaas sariiraha taalo maxay inta alaabta ilmaha la soo dhigmaan laka sariiraha taalo ka madiinayaan yani allah haddii awlaad ilaahay keenan qolkii waxay ka maqashay shoq hadal history meeshaan yaa ku jiro qolkii albaabkiis markay furtay isku naxday waxay aragtay odaygeedii iyo gabar ay mar walba ay cizeyso ay maxay ahayd oo aad ay u dhowrto ay walaaltinimo ku barato wanaageedii quruxdeedii yani dad baa qalbi wanaagsan oo af macaan ku hadlaan ku soo jiidanayaan yani meel sare ka joogto ma ka filanin gabadha jiiraanka ah iyo odaygeedii ayaa meeshan shaqo ka haysto waa shaqada ayaa ilaan qofkii dadka waaweyn waa fahmayaan meesha ilmo kuma jiraan musan dadka waaweyn way fahmayaan marka meeshaan ayago shaqadooda wataan xaaraantooda walaaqanaya oday waa aragay ay gabarey waa aragtay qaladku ku jirta iyadana waa la wadanahay ayada afka labadiisa yarta marka saana ii dambeysay gurigeyga dhexdiisa waxba ma aadan ii yareysanine banaanka xataa qashinka hadaa sameynayso lagu sameeyaa gurigeyga dhexdiisa yaa maxaa kusoo kiciyo yidhaahdo adiga maxaa kusoo kiciy ilaan waxay jira haddaan fahmay habeen walba cabitaanka igu qasbays asanka iga gelinays oo caawa ilaahay iga qabtay ilaan waxay tiri fadeexadaan alla i tusinay waxaad khiyaanadad gadaasheeda ka hays oo alla i kaa tusinay saana anna aan kugu sabray adna saanaa sameynaysa wax loo sabro aamus iyo jiraankana maqlin hoosta hadal ku dhig aamus ilaan waa qof la fadeexeeyey ma aamus ayay tiri dharkeeday guratay albaabkay sii istaagtay qayla kusii dhufatay diriskay soo bixin diriska dhan waxay ogaadeen in ninkan naagta iskula jirto guriga waa soo bixeen diriska waa arkeen maxaa sameynaya hore way ka baxday sheekada wanaa waxay qaatay reerkooda tagtay reerkoodii awalba way rabeen gabadhoodii ninkan waxba ma dhalaaliyay inay kasoo tagto ilaahay ma ka soo wadi waa ninkan waxay loo soo sheegay waxaa yiri gabadhan adoo murmin adoo qeylin gabadhan warqadeeda soo dalaaq mafreeyo maxkamadda la istagay wuxuu sameeyay ninkan loo soo gudbiyay in gabadhan waxay u sabrays waxaa la dhahay labo in gabadhan laga fasaqo iyo in adoo raali ah soo furtid asoo raali oo furay asoo raali oo iska fasaxay laakiin inta lagu gooyay gabadha mistirin qayaana badana
حول قيام طما بسم الله الرحمن إلا بلا آدنك ناقن وحما قيام ما دهي وي قياما نمن كان وحوي قياما لكن قيانا لبد قفود دا اسقبتو إنس قيامين كورونتا قفتي قيانا ودا لكن ويبا كصوبحي معايا القيانا دا وحفي عن ما قيانا دا وحفي عن ما والله marka qisadayna maanta intaasay ku eg tahay qisadan qisa lamid ah insha allah isugu imaanaynaa waxaan idin leeyahay caafimaad bashbash barwaaqo ayaan idin rajeynaa insha allah maxaa lahaa janaalkeena dadka ku cusub oo noo yimid waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan janaalka waa janaalkiina gabadhana waa gabadhiina insha allah gacmo furan kusoo dhawaada walaalahay noo taabta subscribe noo dhaha share noo dhaha like noo dhaha insha allah qisadan qisa lamid ah aan iskugu imaanaynaa waxaan idin leeyahay nabaday asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Thank you for watching. Like, subscribe and comment.